isku soo bax nabadeed ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis oo uu aragtideeda iyo fikirkeeduba lahaa meeyarkii hore ama duqii horete ee magaalada Minneapolis mudane R.T. Rayback runtii isku soo baxaas oo ku saabsanaa in dadka Soomaaliyeed iyo waliba dadka Mareykanka ee iyagu wada degan magaalada Minneapolis ay yihiin dad walaalo ah dadka Mareykanka ayaa halkaas ku muujiyay inay aad uga soo horjeedaan muslimta koorka iyo farfiiqa lagu hayo jaaliyada Soomaaliyeed barnaamijkaas quruxda badan iyo isku soo baxaasna waxa uu ku bilowday sida tan kuwankani waxa weeyaan in dadka Soomaalida ah ee degan Minneapolis iyo dadka aynu degannahay ee cadaanka ah ama Ameerikaanka ah inaynu tusno inaan nahay hal community ay arkaan waxaad ogtahay doorasho wadan ka dhacday waxaad ogtahay in mataqaanay wax farbadan oo negative ah community-ga laga faafiyay runtii waxaanu nahay community shaqaysta Americans ah waxaanu nahay dad ka mid ah dadka Minnesota degan oo ku soo kordhiyay xadaarad ku soo kordhiyay marka dadkan meesha yimid waa iyo Soomaalida meesha timidba waa dad cadaynaya in aynu nahay hal community aan la kala qaybin karin waxyaabahan haydka iyo farta la inagu fiiqayo haddii nahay ama Soomaali nahay ama immigrant nahay ama aynu madow nahayba in ayna waxaas waxba ka jirin aynu nahay dad ka mid ah dadka mataqaana Mareykanka degan citizens shaqaysta mataqaanay odeeya cod leh aad baan runtii ugu faraxsanahay in Minneapolis Foundation iyo mayorkii hore R.T. Rayback iyo boqolaal qof oo mataqaanay degan Minnesota oo mataqaanay community-ga cadaanka ah ama mataqaanay Ameerikaanka ah iyo malaha kale ee kala ay yimaadaan oo ay garab istaagaan Soomaalidu inay tahay dad wanaagsan ka mid ah reer Minnesota wax ku soo kordhiyay mataqaanay nolosha Minnesota taxpayers ah canshuuro bixiya jaamacado aad dhakhtarro leh looyaro leh macallimiin leh guryo leh hanti ku leh wadanka business ku leh marka waxa la tusayaa in aynu nahay dad hal community ah Minnesota ama diinta doonta yeelo ama kalarka doonta noqo ama meesha inta ka soo jeed to support the Somali Sambuza Lollapalooza. دمشق ودقنا سكول مالين وحوا مهمة Soomaalida mar walba in la sameeyaan sida hadda arkaysan gaashan waxa tagan waxa ay dadka magaalada degnaa hadda degan Minneapolis degan meelaha degmooyinka u dhow way soo baxeen waxayna ka hadlayaan waxay tusayaan inay nahay dad isku degan oo wada shaqeyn ka dhaxayso sababta caruurteena isku iskuul aadaan isku waxay ka bartaan isku meel ka wada shaqeynaa madaxweynaha la doortay iyo arrimaha maanta dadka kale ay ka hadlayaan inay jirin ay nahay Soomaalida dad isku degan dadka nala dariskeenna in xushmeynayaan anaga xushmeyno asku imaano meeshayna ka muuqata maanta wallahi soo bixitaankani waa mid mataqaanaa historic ah aad waxaan ugu faraxsanahay inay dadkii Minnesota la deganaa ay intay soo baxaan ay dhahaan waxaan rabnaa inaan idin tusno wanaag iyo sharaf inaan idin hayno oo dariskanaga iyo dadka aan la shaqeynay dadkan saaxiibada la nahay inaan garab istaaganahay wixii dhibaato ah ku timaadana annaga ay nagu timid laakiin hadda maanta isu soo bixitaankan waxay ku tusaysaa dadka Minnesota intooda badan inay raali ka yihiin inaan wada noolaan karno inay ay ku faraxsan yihiin meesha maanta markii la isugu yimid waxaa la bixinayay free hugs so I have hugged so many people marka waxay taasi ku tusaysaa inay wanaag badan uu ka jiro Minnesota inta sheekada inta yar ee xun mooyaane dadka intooda badan ay dad wanaag Arch Hapa and I'm the vice chair of the Minnesota DFL. Okay, tell me about why you're here tonight and what this gathering is all about. Well, I'm here tonight to support the Somali community. They're very important to me. They're my fellow community members, and I believe deeply in their right to participate in the process and to be part of our community to the fullest. I want to make sure that they have equal rights, that they can have a good education, that they can have good housing and everything that I have. And I want to show them my support because they're my fellow human beings, they're my fellow citizens, and they're very important to me, and I want to make sure they understand that. We are every day in Minneapolis, Minnesota, to show people that we are all one, and although we are all different, we come together on the basis of us being human beings, and us being Minnesota, and us being Americans. It doesn't matter who you are or what you are, and what you claim to be. We are all Americans, and we're all Minnesotans. So I mean,
if you want to divide us, you have to get through this community gathering. You have to come through everybody being American to halkaas oo ay ka dheehanayseen kalgacaylka iyo saaxiibtinimada u dhaxaysa dadka wada degan magaalada weyn ee Minneapolis iyagoo ismarxabeynaya islaab qaadaya iskuna tahniideynaya dad mid ah isku aragti ah isku fikrad ah waxaanay halkaasi iskula garteen in ay ku wada noolaadaan farxad iyo midnimo shiree warsame galbeedka telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable magaalada Minneapolis dalka Mareykanka